kulanti habboon idil ahaantiinba daawadayaal meel weliba waad ka joogtaan dafaha caalamka ku soo dhawaada tabintiinnan waanu ku eegi doonno wararka iyo macluumaadkii ugu dambeeyey dagaalka ka oogan bariga dhexe ee u dhexeeya wadamada Israa'iil iyo Iiraan. Aanu idiin soo gudbin doonaa wararadii ugu dambeeyey ee lagu qaaday gudaha Israa'iil, warar kale oo rogaal celis oo Israa'iil ay uga jawaabtay hanjabaado kala duwan oo hawada dhinacyadu ay isu marinayaan. wararadii saaka Israa'iil lagu qaaday oo qasaarooyin xoogan dhaliyay, waxaanu idinla wadaagi doonaa macluumaad guud oo umuurahaasi ku saabsan. soo dhawaada wada haday tahay markaaga kugu horeysay aad soo booqato halkan, subscribe noo saar noona like gare muuqaalkan, waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. aanu si anbaqaadno wararka laga helayo dagaalka ka oogan bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan ayaa cirka isku sii shareeray, waxaana marba markii ka sii dambaysa ay qaadayaan dhinacyadu tallaabooyin xoogan kuwaasi oo dab ku sii shidi kara colaadda ka dhexaysa labada dowladood ee Israa'iil iyo Iiraan. Iiraan ayaa horraantii saaka waxa ay warro gantaalaha ku qaaday gudaha Israa'iil, iyadoo muuqaallo soo baxaya ay muujinayaan burburaan taariikhda oo dhan laga arag oo ka dhashay gantaalada Iiraan ay ku garaacday gudaha wadankaasi Israa'iil. Iiraan ayaa waxa ay beegsatay saldhigyo muhiim ah oo qaarkooda lagu sheegay inay yaalaan nidaamka hubka casriga ee nuclear-ka ee dowladda wadankaasi Israa'iil. mid ka mid ah goobahaasi xasaasiga ee wararada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah saldhigyada ku yaala koonfurta dhulka Israa'iil oo ay haystaan inta uu socday weerarkii horraantii maanta lagu qaaday gudaha wadankaasi Israa'iil. waxaa la tilmaamayaa weerarkaasi inuu geystay qasaarooyin xoogan oo markaasi ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay. wararada ayaa sidoo kale lagu qaaday fariisimo muhiim ah oo ay Israa'iil ku leedahay gudaha wadankaasi, waxaana la beegsaday goobo markaasi kayd ah oo ay hubka ku keedsanayeen saldhigyo militari oo markaasi muhiim ah. saraakiil ayaa la tilmaamayaa in la toogtay, kuwaasi oo qaarkood hogaaminayay dagaalka, sida ay soo warinayaan wakaaladaha wararka ee janaal 12 iyo janaal 13 ee ka soo baxa gudaha wadankaasi Israa'iil. waxaa la tilmaamayaa in dagaalka uu kordhay isla markaana dhinacyo badan uu yeeshay. wakaalada wararka Iiraan wararka u baahisa ee Tasnim News Agency ayaa waxay maanta oo Khamiisihii ku warantay in nidaamka difaaca cirka ay ku soo rideen diyaarad drone ah oo ay leedahay Israa'iil oo lagu magacaabo Hermes gobolka Loristan ee galbeedka Iiraan. waxaana la tilmaamayaa tallaabadaasi inay tahay mid militari oo ay ku faani karaan ciidamada kacaanka ee wadankaasi Iiraan. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa waxay war-saxaafadeed ka soo saareen arrintaasi, waxaana ay sheegeen hadda qof waliba waxa uu cadaatay awoodeena sirdoon oo aanu ku beegsan karno isla markaana aanu ku geysan karno weeraro sax ah kuwaasi oo gudaha Israa'iil lagu qaadayo. weeraradeenna waa kuwa sii socon doona mar kasta, isla markaana waxaanu muujin doonaa awoodeena oo aan ku burburin doono gudaha wadankaasi Israa'iil ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan. sidoo kale waxaa la tilmaamayaa inay beegsadeen goobo kale oo istiraatiiji ah oo ku yaala gudaha wadankaasi Tehran. waxaana la tilmaamayaa in diyaaradahaasi dhammaantood halkaasi beegsaday, qaarkood dhulka lasoo dhigay F-35 oo Mareykanka uu leeyahay ayaa ka mid ah oo mar kale lagu soo riday. sirdoonka dowladda wadankaasi Israa'iil ee Moosaadku ayaa waxa ay sheegeen inay baadigoobayaan goobaha kaydka nuclear-ka casriga ah ee dowladda wadankaasi Iiraan, kuwaasi oo ay doonayaan in si toos ah ay u beegsadaan si ay u burburiyaan isla markaana ay u soo afmeeraan guud ahaanba awoodda dowladda wadankaasi Iiraan. waxaa sidoo kale arrintaasi ka jawaabay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo sheegay inay ka hortagayaan qorshe weliba oo dhagar ah oo ay maleegayaan maamulka Sahyuunigii. waxa ay sheegeen inay beegsan doonaan dhagar weliba oo ay ku geysanayaan weeraro ay ka fulinayaan gudaha Iiraan. waxay sheegeen inay ka digtoon tahay Iiraan isla markaana markan kadib aysan jiri doonin dhagaro loo maleegi doono, kuwaasi oo guud ahaanba ay sheegeen inay iska caabin doonaan. weerarada ka dhacaya gudaha wadankaasi ayaa sii kordhaya, waxaana la tilmaamayaa in dhinacyadu markan ay qaadayaan tallaabooyin xoogan. warbaahinta Falastiin ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay beegsadeen 23 qof, kuwaasi oo lagu dilay marinka Qazatan iyo waaberigii Khamiista, oo ay ku jiraan 16 shaqaale oo gargaar degdeg ah, kuwaasi oo ku howlanaa gargaar u fidinta dadka ku waxyeeloobay halkaasi kadib dagaalo halkaasi ka dhacayay. laba sarkaal oo Mareykan ah ayaa waxa ay u sheegeen wakaalada wararka ee Reuters in militariga Mareykanka ay bilaabeen inay raraan diyaaradaha iyo maraakiibta saldhigyada muhiimka ee bariga dhexe si looga hortago khataraha
markaasi uga iman kara dowladda waddankaasi Iiraan. Mid ka mid ah saraakiishaasi ayaa waxa uu sheegay in maraakiibta dagaalka qaarkood laga saaray saldhigga dalkaasi Bahrain, halkaasi oo ah xarunta cutubka shanaad ee ciidamada badda dowladda waddankaasi Mareykanka. Sidoo kale diyaarado ay ku jiraan beelaha difaaca culus ayaa laga raray saldhigga cirka ee dowladda waddankaasi Qatar, kaasi oo mid ka mid ah saldhigyada militari ugu weyn Mareykanka ay ku yaalaan ee bariga dhexe. Warbaahinta Falastiin ayaa sidoo kale waxa ay ku warantay in weerarada ay sii kordheen tan iyo markii dagaalka uu bilowday, waxaana la tilmaamayaa in Israa'iil mar waliba oo la weeraro ay weerar kale ku qaadayso gudaha waddankaasi Falastiin, gaar ahaan daanta galbeed oo ay awood ku haystaan. Wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday Khamiistii in ka badan 1,600 oo u dhashay Shiinaha oo laga daadguraynayo Iiraan iyo Israa'iil. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in weli ay xiriir la leeyihiin Iiraan iyo Israa'iil, sidoo kalena ay qaadayaan tallaabooyin culus oo ay dadkooda uga soo daadguraynayaan gudaha wadamada lagu dagaalamayo. Waxay u muuqanaysaa Shiinuhu inuu ka dhoorsanayo guud ahaanba dagaal uu siinayo dowladda waddankaasi Israa'iil iyo si toosa uu isu barbar istaajinayo Iiraan ka gadaal Mareykanka oo si cad uga dhawaaqay inuu duulaan ku yahay gudaha waddankaasi Iiraan. waxaa la tilmaamayaa in Ruushka si qarsoodi ah markaasi uu taageerayo dowladda waddankaasi Iiraan. Ruushka ayaa la tilmaamayaa in 2,000 oo injineer ah uu diray gudaha waddankaasi Iiraan, kuwaasi oo la tilmaamayo inay u dhisayaan guri casri ah oo lagu xareynayo hubka nuclear-ka, kaasi oo ka badbaadin kara guud ahaanba Qatar waliba oo gantala uga iman karta gudaha Israa'iil. waxaa la tilmaamayaa tallaabadaasi inay timid kadib markii Mareykanka uu xabadka u garaacday inuu qaadayo weerar culus uu ka geysanayo gudaha waddankaasi Iiraan, isla markaana tallaabadaasi uu ka fikirayo dhawaana uu go'aan cad qaadan doono. waxayse u muuqataa tallaabadaasi in dowladda waddankaasi Ruushka arrintaasi ay si weyn u fargelinayso. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa isbedel ku soo bandhigay intii uu socday waraysi uu siinayay mid ka mid ah warbaahinada caalamka. waxa uu sheegay in muhiim ay tahay xilligan in la adkaysto isla markaana la iska kaashado wax waliba oo lagu damin lahaa colaadda beeran. Ruushka waxa uu doonayaa in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka isla markaana la hakiyo. dhankiisa waxa uu sheegay inuu doonayo in la hakiyo dagaalka kala dhexeeya Ukraine. waxa uu doonayaa in guud ahaanba la hakiyo, isagoo sidoo kale doorbidaya in guud ahaanba uu la hadlo cid waliba oo markaasi xaajo doonaysa. xitaa waxaan doonayaa uu yiri inaan la hadlo Zelenskyga xukuma Ukraine. waa tallaabo culus oo markaasi uu qaadayo madaxweynaha waddankaasi Mr. Putin. maalmihii ugu dambeeyay siyaabooyin kala duwan ayaa loo tilmaamayay in dhaqdhaqaaqyadu ay u xoogaysanayaan dhinacyaduna ubaruursi xoogan ayaa la tilmaamayaa inay wadaan dowladda waddankaasi Israa'iilna waxaa la tilmaamayaa dhankeedu inay qaadayso dagaal culus. waxaase jira in waa barigii hore ee saaka weerar culus lagu ekeeyay gudaha fariisimo muhiim ah oo ku yaala gudaha waddankaasi. warbaahinta gudaha Israa'iil ayaa waxa ay soo warinaysaa in weeraradii saaka la geystay ay ahaayeen kuba culus, isla markaana lala beegsaday bartilmaameed markaasi muhiim ah oo ciidamada militarigu ay leeyihiin. sidoo kale waxa ay ku warameen in Israa'iil ay qaadayso weerar culus kuwaasi oo lagu beegsanayo fariisimo markaasi casri ah, kuwaasi oo lagu kaydiyo hubka nuclear-ka oo ku yaala gudaha waddankaasi Iiraan. waxaa la tilmaamayaa in Iiraan in tallaabadaasi ay ka weerarashay isla markaana ay qaadayso tallaabooyin culus oo lagu hor istaagayo qorshe waliba oo markaasi ka dhana dowladdaasi. waxay u muuqanaysaa tallaabooyinkan inay yihiin kuba culus, dhaqdhaqaaqyo culusna ka beeri kara gudaha deegaanada. waxaa la tilmaamayaa Talaabiib inay qaadayso tallaabooyin culus oo iyaguna kuwaasi ka dhana, halka sidoo kale Tehraan ay ku hoolan tahay weerar gantala oo mar kale lagu qaadayo. kuwii xalay lagu ekeeyay ayaa la tilmaamayaa iyaguna inay geysteen dhibaatooyin xoogan oo markaasi laga geysanayo gudaha Israa'iil, waana tallaabo xoogan oo markaasi Iiraan ay qaadayso. Iiraan dhagjala kuma siinayso baaqyada ka soo kala baxaya caalamka, waxaana ay si cad u sheegaysaa inay sii laba jibaari doonto weerarada ay ka geysanaysa gudaha Israa'iil, waana tallaabo go'aan leh oo ay qaadayso xukuumadda Tehraan. lama soo oga halka ay saldhigan doonto. guud ahaan intaasi ayaan ku soo afmeerayaa daawadayaal, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.